aragtiyaha isbedbedelaya ee boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow ayaa toddobaadkan dhaliyay hadalhayn xooggan iyadoo ay dadku isbarbar dhigayaan weerihiisii hore iyo kuwa maanta oo iska hor imanaya. haddaba in Xasan Sheekh Maxamuud oo noqday madaxweynihii ugu dagaalka iyo cunaqabataynta badnaa Somaliland ee Soomaaliya xilka soo qabta looga ololeeyo magaalada Hargeysa inuu mar kale dib u soo noqdo maxay ka dhigan tahay maxayse tahay guuldarrada weyn ee Cismaan aw Maxamuud Buurmadow uu qirtay kaasi oo sheegay inuu iska qomameeyay marka shuruucda Somaliland loo eego maxaa lagu xukumi karaa qof ku dhacay khaladaadkan oo kale warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa. laba qodob oo waraysi uu bixiyay uu kaga hadlay Cismaan aw Maxamuud Buurmadow toddobaadkan aynu ku guda jirno ayaa hadalhayn xooggan dhaliyay iyadoo ay muwaadiniinta reer Somaliland su'aalo tiro badan iska weydiiyeen isbedbedelka boqorka iyo weeraha iska hor imanaya ee warbaahinta had iyo jeerba mariyo taasi oo uu ku beego marba xaaladda taagan iyo sida uu ula falgeli karo balse aanu eeginin aragtidiisii hore iyo waxa uu hore uga yiri arrinta uu mar labaad ka hadli doono qiraalka boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow ee jabkii ciidamada Somaliland sanadii 2023 dagaalkii lagaga soo ceyriyay deegaankaasi ayaa noqotay mid eed reebta madaxweynihii hore ee Muuse Biixi Cabdi oo isagu markaasi majaraha hayay dagaalkaasina ka gaarayay amarada ugu dambeeya waxaana tan ay ka mid ahayd dhacdooyinkii sababay inuu lumiyo taageerayaashii doortay sanadkii 2017 kuwaasi oo ay dad badan u arkeen hogaamiye guuldarrada la saaxiib ah dhigayna dhacdooyin aan 35 sano ugu dambeeyay ka dhicin gudaha Somaliland. boqor Cismaan Buurmadow oo arrintaasi ka hadlaya ayaa sheegay inuu iska qomameeyay taageero la'aantii dawladda iyo inuu horseed u noqdo jabkii ciidanka oo dhinaca kale ka soo jeesto waxa uu si cadaboolka uga rogay inay iyagu ciidanka jabiyeen oo qayb ka ahaayeen inay Somaliland guuldarro kala soo huleesho magaalada Laascaanood. wuxuu sheegay Cismaan aw Maxamuud Buurmadow waxa aanay filanaynin inay ku dhaceen oo deegaankii ay taageersanaayeen ay moodayeen inuu sidaasi dhaamo isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay maxaabiista sababaha ay u soo deyn leeyihiin ee u diidan yihiin in la iska laab xaadho wixii dhacay sanadkaasi 2023 inay qayb ka tahay sidii ay isugu ilaalin lahaayeen maxaabiista ay gacanta ku hayaan si aan weerar dambe Somaliland halkaasi ugu qaadin waxaana ay weerarani noqdeen kuwa hadalhayn badan dhaliyay oo la soo barbardhigo kuwa waqti hore sidan ka aragti duwanaa boqorku isagoo xilligaasi 2023 ahaa dadkii ku faraxsanaa in Somaliland ay guuldarro kala soo huleesho magaalada Laascaanood isagoo daboolka ka rogay Muuse Biixi iyo xukuumaddiisii inay si gaar ah oo shakhsi ahaaneed ay isu hayeen mucaaradnimadii khaaska ahaydna ay sababtay dhaawacyo waaweyn oo soo gaaray qaranka Somaliland. arrinka ka sii culus ee qodobkan aynu falaqaynayno ayaa ah in uu sheegay boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo mar saddexaad in uu noqdo madaxweynaha Soomaaliya si hogaamiye inkastoo uu dhinac siyaasadeed ka maray sheegana aragti ahaan inuu u arko aqoonsiga Somaliland dhamaystirkiisu inuu ku xidhan yahay magaalada Muqdisho balse waxa uu sheegay xildhibaanada beelaha direed ee saami ahaan ka soo jeeda Somaliland balse aan matalaada ka haysan in ay kaga iibsan doonaan aqoonsi caalami ah oo Soomaaliya ay ka hesho Somaliland balse haddii uu taa samayn karayo sanadkii horeba waxa uu ka mid ahaa odayaashii iyo madax dhaqameedkii ku sugnaa magaalada Muqdisho kuwaasi oo u ololeynayay Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo ay hadaladani ahaayeen olole siyaasadeed iyo ismuujin uu ku sii dhagax dhiganayo boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow kala riixriixashada kursiga fiilla Soomaaliya oo uu doonayo inuu door muuqda ka ciyaaro sidii caadada u ahayd balse dad badan ayaa isweydiinaya sidee suurtagal ku tahay madaxweynihii dagaalkii ugu badnaa la soo galay Somaliland intii uu talada hayay in mar kale soo noqoshadiisa looga ololeeyo caasimadda Somaliland ee Hargeysa qirashada jabkii ciidanka inay ka dambeeyeen boqor Cismaan aw Maxamuud Buurmadow iyo dadkii la aragtida ahaa ee dhinac kale soo jeeday iyo in looga ololeeyo madaxweynaha Soomaaliya magaalada Hargeysa dhexdeeda ayaana ah labada qodob ee ugu hadalhaynta badan ee ku jiray waraysiga Cismaan aw Maxamuud Buurmadow. nidaamka dawladnimada ayaana ay tahay cid kasta oo meel ka dhac ku sameeysa shacabka iyo muwaadiniinta inay ka gudato waajibkeeda boqorka oo hadaladiisana ay hayaan kuwa siyaasadaysan ayaa Djibouti oo hore u weeraray ka dabciyay haatan beelaha Ciise ayuu sidoo kale amaanay halka uu beelaha Gadabiirsayna weeraray doorkan waxa uu janjeeray dhinaca beelaha Hawiye waxana uu ku jiifsaday beelaha Daarood oo ay aragtiyaha isbedbedelaya ee Cismaan aw Maxamuud Buurmadow yihiin kuwa meesha ka saaraya mudnaantii uu lahaa